كسو قيب قلاشا مرنتي مناسبة غالية وحان ديه كلا رنتي وفرصة ذهبية انتان وعقاشي وحقرتكي قبل كن قالوا ما انت ميشان سوتمي وحان ليه رنتي وفرحة وين وأرين رنتي ما أنت منانت هذا له مهمنا مركز تين الحسوسية ضدك ولا لها إن إنسان كل سوية مادان كتشادان أيه هذا يمستقبل كذا نلاش أنت إنه ليهن ولا هو طلع علي أنت هذا أنت وقتها جو وحرنتي السؤال وين يا سد هذا القضب ووهر أبنجو مركز لي أبنجو وأبنجو قبل كودن markii si gaar ah loo fiirshana waa gobol waa degmada aynu joogno iyo amnigeeda sidaan uga shaqeyn lahayn ruuxantii amniga maanta waxa ugu muhiimsan kan dhexdana way dhexdeenu maanta amniga u baahan tahay magaaladu maanta waxay u baahan tahay waa garan kartaan iyo inta ku xeeran waxay u baahan tahay in amnigeeda la ilaaliyo waxyaalaha amni xumada keena kow in laga dagaalamo amni xumada waxba keena waxa ugu horeeya waxyaalaha la yiraahdo drugska ama khamrada runtii amni xumay keentaa maxaa yeelay qofku ma oga waxa uu sameeyo xashishada la mid ah kasto oo maandooriya la mid ah waxayna keenaysaa waxa maandooriyahay waxa iyagoo isku wada fura ah qofku markuu sigaar cabo qaad cuno xashishad cabo waas furaya wax dhan badacad cabo kulli wax soo wada egway wax isku wada xiran aan kala maarmin waxa marka la rabaa horta inaan ka shaqeyno magaaladeena amnigeeda waxaan u baahanahay inaan waqti galino oo dhalinyaradeena ka wacyi galino waxyaalaha mukhadaraadka ah si dadkeena iyo dalkeena u badbaado waxaan jecelahay inaan magaalada ka shaqeyno casuumada oo ay noqoto magaalo runtii dhinac walba ka dhisan haday noqon lahayd dhinaca amniga iyo haday noqon lahayd dhinaca bilicda iyo haday noqon lahayd dhinaca dhiraynta haday noqon lahayd dhinaca ballaarinta iyo haday noqon lahayd dhinaca isku wada noolaanshaha dadku ay meesha isku wada yimaadaan oo magaalada lagu wada nool yahay si dadka loo soo dhaweeyo dadku ay magaalada u degaan magaaladu dad bay u baahan tahay ogaada waxa hadda magaalada u jeedaan cilada dad bay u baahan tahay waad aragteen hadda wadamada dibadaha Yurub iyo Mareykanka waxa dadka loo qaadaa dadkii baa lagu beeray meesha dadkii baa meesha lagu beero ku sii dhalaan si dadku u buuxsamaan hadii kale inteena bahareys yeen lamida waxa marka u baahanaa dadkii la soo dhaweeyo dadka la dejiyo nololka loo raqiisiyo guryaha loo raqiisiyo iyaga la soo dhaweeyo nidaamka la ilaaliyo inagu amniga ka shaqeyno waxa la rabaa idinka magaalada jooga odayaalka idinka waxa la rabaa inaad u noqotaan hormuud magaalada amnigeeda iyo dadka soo dhaweyntiisa iyo isku xirka ummadda magaalada runtii waa magaalo qaali ah waa magaalo dhextaal ah waa magaalo dadkoo dhan wada baahan yihiin waa magaalo amni ah waxaan u baahanahay marka inaan sii xoojino amniga in laga wada shaqeeyo oo nimo dhinac ka istaago hablo dhinac ka istaagaan wiilashu dhinac ka istaagaan la isu wada yimaado oo talada wada mideeyo hal arrin oo dhacda baa laga yaabaa inay fidna keento oo dadka oo dhan marka ay saamiso fidnadaas mid kale waxaan leeyahay magaaladu waxaan rabaa in laga wada shaqeeyo magaaladu waaga taqinaan ma magaaladu waa ballaaratay maadaama ay ballaarateen waxay u baahan tahay dad badan in laga wada shaqeeyo qofku meel ma gaari karo 5 iyo 10 iyo 20 meel ma gaari karto laakiin waxa loo baahan yahay ummadda oo dhan inay si midnimo laga wada shaqeyso oo ay wadaan in qofba meesha uu joogo wax ka qabto taasana muhiim ah hadeerna waa wada runtii waxaan leeyahay wayna wasi dhawaataan si ay magaalada u noqoto magaalo runtii wax walba laga heli karo qodobka doorashooyinku runtii waxaan dhihi karnaa waa arrin dadka dhan muhiim u ah haday noqon lahayd dhinaca eeda haday noqon lahayd dhinaca mustaqbalka haday noqon lahayd dhinaca isku xirnaanta haday noqon lahayd dhinaca awoodda qofka awoodda uu fiiriyo awoodda isku tijaabiyo dhinac walba wax tarba inoo tahay laakiin waxaan la yaabanahay dadka qaarkii markay geliyaan su'aal geliyaan waxaan la yaabanahay aan waxaan dhihi karaa meesha su'aal kuma jirto waxaan markaynu bilaabanay Puntland oo la asaasayay waxaanu ka asaasnay meel banaan oo cidla ah maantana waa u jeedaa alxamdulillah waxa hormoodina ku ahaa markaa joogay uqaal iyo madax iyo dhalinyaro iyo haween waa laga wada qayb qaatay maanta meel fiican baynu joognaa alxamdulillah waxaynu u baahanahay
inaynu meeshay shalay joognay aynu jooginayna hore u soconno waxaa la rabaa inaan ogaano doorashada madaxweynaha oo dimuqraadiyada wax lagu dooranayo wax soo degdegi kara maaha wax aad u badan baa ka horeeya waxaan u baahanaa inaan wadno oo tallaabo u qaadno inaan u qaadno maanta doorano magaalada kasoo doorano hore u sii soconno baarlamaanka sii doorano waxaan mar dhammaan kara maaha wax maanta wax lagu soo gebagaben karo maaha laakiin waxaa loo baahan yahay in la wado meeshay doonto ha gaartee innaga waxaan rabaa inaan baasha kaxayno oo doorashada kaxayno oo dadka u danayno si dadku ay u doortaan qofka ay doonayaan aniga haddeer idinku baydan dooran waa laydin soo kay magacaaba laakiin waxaad gaari doontaan inaad idinku qofka aad doorataan ka fiirisaan shuruudaha u baahantii shuruudaha fiirinaysaan muxuu ku fiican yahay innaga muxuuna taraya horta gobolka Nugaal degmada Garowe muxuu ninkaan taraya bal hal akhriyo si fiigis xagga amni muxuu ka qabanayaa dhaqaalaha muxuu ka qabanayaa idinka dooranaya laakiin markii qof la idin keeno maalinkiisa qof la idin keeno daawood ma lihidin dusha la idin keenaya halka waxa ku yaala consulkii maanta oo dhan dad baa waxa la raadinayaa si laba reer loo kala saari lahaa yaa kala saari kara laba reer laba nin oo labadaba xaq u leeyahay yaa kala saari kara waxa kala saari kara waa doorashada codka ah qofka waxa uu la yimaado oo doorashada uu ku helo taas asaga dan ugu jirta waxaan leeyahay hawshaas maanta waa hawl muhiim inaga noo ah maslaxadeena ku jirta cid kale u danayn mayno cid kaleena kaba codsan cid kaleena ma weydiin meesha aynu gaarsiin karno gaarsiinayna inaga waxaan rabnaa socodsiino ayl baa laga soo qabtay hadda xildhibaanada qaar baa jooga ay laga soo doortay way muuqanayaan cod baa lagu doortay halkaas uu yimi cod baa lagu doortay maanta reerna ma rabo suxuu ku falay reer halkaas uu maraya maxaa yeelay degmadu ka soo baxay gobolka oo ayl wax taraya halkaas ku shaqeynaya iyadoo wax tar ku yahay kii halkan ka soo baxay Nugaal iyo tuulooyinka ku xeeran iyadoo wax taraya waxaan leenahay marka yaan meelo hoose wax laga fiirin aan hore socon hore aan fiirino kor aan fiirino yana maanta aan ku noqon waxaan soo dhaafnay aan hore soconno aad baan ugu ixtiraamayaa dadka xoogaa fikradaha leh hadda ma gaari karno iyo xoogaa wali waxba inoo haray iyo odayaasha qaar la tashanayo waa ku ixtiraamaya fikradooda waa fikrad fiican laakiin waa la soo dhaafitaa maanta waxay joogtaa hore soconne aan hore u soconno aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaana leenahay waa ka wada shaqeynana degmadaas aniga la soo aaminay inaan ka shaqeeyo waxa ay ugu horeeya ka shaqeynaya waa koobeyta yada koowiya amnigan ka shaqeynaya bilicdeedan ka shaqeynaya dadka gobolka Nugaal degmada Garowe degaba ka shaqeynaya wax allaale wixii maslaxadooda baa ka shaqeynaya waxaana jecelahay inaad taay ula shaqeysaan igu taageertaan idinku haddana waa mahadsantihiin qadar soo ajibteen waxaana leenahay inta waa soo dhawaad doona ilaahay insha Allah ta'ala xafiiska weydii furan yahay nabadoonow mamnuucna ka baa xaasha lillah ku soo dhawaada ixtiraam baad ku leedihiin waad ku mudantihiin way ku soo dhaweynaya wax allaale wixii talaadi sisaana samca wadaacan wax allaale wixii talaadi sisaan waan wadada xaq ayga leexinay samca wadaacan diyaar baan u ahay aad ma mahadsantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh